hay-adda istaatistikada qaranka ayaa shaacisay in si rasmi ah u bilowday sahanka dhaqaalaha qaranka si loo ogaado heerka dhaqaale ee dalka uu marayo. Shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Muqdisho, agaasimaha guud ee hay'addaasi Dr. Cabdisalaam Cabdiraxmaan Maxamed ayaa ku faahfaahiyay muhiimadda dalka ay u leedahay tallaabadan ay qaaday hay'adda. Waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan u mahadceliyo dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed, qaybaha kala duwan ee bulshada iyo warbaahinta Soomaaliyeed doorka ay ku leeyihiin taageeridda shaqada hay'adda istaatistika qaranka Soomaaliyeed. Hay'adda istaatistika qaranka Soomaaliyeed waxay si rasmi ah u bilowday sahanka dhaqaalaha ee sanadlaha ah kaasoo ka socda dhammaan gobollada dalka. Ujeedka sahankani waxa weeyaan inaanu ku aruurino xog sugan oo ku saabsan dhaqaalaha Soomaaliya, heerka uu marayo, taasoo ka saacidi doonta dowladda Soomaaliya inay ku qiimeyso qorshaheeda isbeddelka qaranka, xog ku saabsan qorshaha isbeddelka qaranka in loo helo, sidoo kale daneeyaasha iyo bulshada qaybadeeda kala duwan ay u ogaadaan meesha uu marayo ama heerka uu marayo ganacsiga iyo dhaqaalaha Soomaaliya, taasoo ka saacideysa dowladda in la dejiyo siyaasado dhaqaalo iyo dhiirigelinta maalgashiga gudaha iyo dalkaba. Waxaan rabaa inaan halkan si cad ugu xuso in sharciga hay'adda istaatistika qaranka Soomaaliyeed soo baxay 2020 ahna sharci law number 24 ama sharciga xeer number 24 kaasoo ah xeer madaxweyne inuu si cad u qeexayo inay waajib tahay in ganacsatada Soomaaliyeed qaybaha kala duwan ee bulshada iyo hay'aduhuba ay xogta la wadaagaan hay'adda istaatistika qaranka Soomaaliyeed. Dr. Cabdisalaam Cabdiraxmaan Maxamed ayaa sidoo kale fariin u diray bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada. Waxaan rabnaa inaan ganacsatada Soomaaliyeed aan halkan uga cadeyno xogaha aan ganacsiga ku saabsan aan runin doono ma ahaan doonto xog loo isticmaalo canshuur iyo wax la xiriira, waxay noqon doontaa un kaliya xog ku eg hay'adda istaatistika qaranka, cid kale aan loo wareejin doonin. Xogtaasna ay ahaan doonto mid sugan oo ku kooban cidda xogta laga aruuriyay iyo hay'adda istaatistika qaranka. waxaa jira xeerar si cad u xusaya inaan anaguna xogta dadka ilaalino, si hufan aan u kaydino, si hufan aanu mataqaanaa go'aamo wada jir ah oo dhaqaalaha dalka iyo waddanka meesha u socdo aanu ka soo saari doono. waxayna naga caawin doontaan sida aan hore u sheegayba in aanu ka cabirno dhaqaalaha Soomaaliya qaybta wax soo saarka anagoo mataqaanaa xoog saarayna. Aniga ku hadlaya magaca hay'adda istaatistika qaranka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa ganacsatada Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan soo dhaweeyaan xog ururiyaasha sahanka kuwaasoo dabcan goobahooda ku soo booqan doona. Waxaan si wadajir ay hawsha ay nagu sahlaysaa in hay'aduna ay hesho xog sugan oo lagu kalsoonaan karo, ganacsatadana sidoo kale ay xogtooda ay la wadaagaan hay'adda istaatistika qaranka, taasoo laftigooda faa'iido ugu jirto oo ah markii xog laga helo dhammaan hay'adaha kala duwan ama dhammaan ganacsiyada kala duwan ee Soomaaliya ayaa dowladda iyo daneeyaashu bay ogaan karaan heerka dhaqaale waddanka marayo, maalgashiga nooca loo baahan yahay, meelaha mataqaanaa aan ku fiicannahay, meelaha aan ku liidano. Hay'adda istaatistikada qaranka Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay guulo la taaban karo ka gaartay fulinta shaqooyin muhiim u ah dalka iyo dadka Soomaaliyeed.